وعلى ذكرها مرك إذن كأنا هاتين تبكي متهلا يا وناك قاعد تصلون قول الصومالية داتين قلم ملهدنا قبيل ملهدنا كوح ملهدنا كوي نهار بوليس كوا هاي يكوا هذا كصابيري اسكو حقوقاتي قف كفي عن مجرم كوي إنه كصابيرينا لما مالود كم ودت السنان كرتين قفكي مالكن كم مسؤولة تليه سكان مرغاتا دولة الصومالية سكان مرغاتا حقوق يا واجبات حقوق دين الدولة ده اللي قربها واجبات كين إنا جدتين إذن كلا إذن كلا قفكي واجبات كي سجدون ويانا وين لمرسيات تلاوة الشرعية لكن أنت هذا واجبات كذا جدن عن الوقوع أمريكا وين الوقوع شجاع واحد وياي وأنا حقوقي سلوكسية إذن كانوا حان ما أنت دين شيء يا فرصة ليدي فرصة سواء من الدلك إنه حقوق قبطان قبل كان أتكوها جاجسان ما قعدوا تكتان نيد الدتكين هذول جاجسين فرصة داس إن تسقى عيارتان هنا الدتكين نقول فايديسان لبضة بيدينك أي يدينك فلان فرصة داس مركب وقوم فايدين كرتان شعب كصوماليا أدي مسكح دي النقيب أي قبيل كيف فكري أما قولة كيف فكري أما كوح كيف فكري هذا الحرع هين إلهي waxa uu dadka siiyay waxa uu muhiimsan aqligooda iyo maskaxdooda maskaxda adaa lagu siiyay marka in aad ku fikirto in lagu la qaybsado lagu siin in aad kula lahaato waxa lagu siiyay adigu inaad fikir aad xor u tahay aad ugu adeegto shacabka Soomaaliyeed fikir kala qobnaana waa shaqeyn waay mid qabaaladiyaaladna waa shaqeyn waay mid musuqmaasuqna waa shaqeyn waay mid aragti koobanna ama gaaban waa shaqeyn waay magaaladani waxay u socotaa iftiin cusub laakiin cadow bay leedahay aad ogtihiin oo ku soo duulaya mar walba marti badan ayaa idin la joogta cadowgaas waa inaad ka difaacdaan magaaladiina martida idin joogtana waa inay dareemaan inay tahay meel la joogo ilaa hadda shaqo fiican qabateen waa idin hambalyeynaya waa in la sii laabo haddii ilaa yiraahdo walaalaatiina idinkaas ku labis gasha idinkaas ku meel saaxda idinka xabadda iska xigsada yaan cid idin sheegin inaad kala tihiin qolo iyo qayb dad Soomaaliyeed oo u soo istaagay dhiigooda inay qarankooda ku bixiyaan afkiin hadaba taas ogolaateen kulligii intiina ka sameeyay inay dhiigga qaranka ku bixiso intaasaa walaala intaasaa qarannimada walaala ku ah intaasaa taariikhda mustaqbalka walaala ku ah waa idin hambalyeynaya ilaahay idin fududeeyo shaqadiina u maanta